السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي كسو دوادا channel كيغا maanta waxaan idiin wadaa barnaamijkeenii marabta ubad wanaagsan qeybtiisii labaad insha Allah maanta qeybta labaad waxaan uga hadli doonaa haddii Allah awooda la ii qadaro ilmaha marka ay dhashaan caloosha hooyada ay kasoo baxaan ilaa ay ka gaaraan muddo 1 sano ah sida loo tarbiyan lahay soo loola dhaqmi lahay iyo waxyaabaha hooyada looga baahan yahay in ay sameyso si ubad wanaagsan ay u hesho fiidiyogankii ka horeeyay waxaan hore uga soo hadalnay ilmaha markay caloosha hooyada galaan ilaa ay ka dhashaan wixii ka horeeyaba maxaa hooyada looga baahan yahay inay sameyso insha Allah kana waxaan ku soo qaadan doonaa waxyaabaha hooyada looga baahan yahay in ay sameyso si ubad wanaagsan ay u hesho ilmaha markay dhashaan ilaa 1 sano ka gaaraan maxaa hooyada looga baahan yahay in ay sameyso qodobo dhowr aan ku soo qaadanaynaa haddii Allah awooda la ii qadaro qodobkeena koowaad waa inay Allah ku mahadisaa hooyada markii ilmaheeda ay hesho ilaahay ku mahadisaa ilaahay ku xamdisaa midda labaad waxay tahay waa in dhagaha looga adimaa ilmaha yar marka ay dhashaan cunuga marka uu dhasho dhagta midigta waa looga adimaa dhagta bidixna waa looga aqimaa sida sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam ka sugnaatay waa inuu maqlaa cunugaas kalimada tawxiidka midda kale waxay tahay hooyadu waa in u sameysaa ilmaha taxniik wax la dhaho timir yaraa la soo calaalina timirta markii la soo calaaliyo gacanta lagu soo tiraa ka bacdi cunuga afka ciridkiisa loogu tiraa timirtaasina waxa waaye nabiga kaleey salaatu wasalaam ka sugnaatay oo asaga macnaha sameeyay marka waa inaan nabiga uga daysanaa kaleey salaatu wasalaam ilmahan caafimaad badan ay u leedahay tarbiya ahaanna way u wanaagsan tahay waliba waxa fiican qof wanaagsan inuu sameeyo midda afaraad waxay tahay ilmaha yar in loo duceeyo cunuga waa inaa u duceysaa markuu u dhasho nabiga kaleey salaam wuxuu ahay mid u duceeyay xasan iyo xuseen markay ay dhalanayeen waxaa loo baahan yahay inaa ugu duceysid aciiduka bikalimaati illaahi taamaati min kulli shaytaanin wahaama wa min kulli caynin laama marka waa inaa ilmahaaga u duceysaa midda kale waxay tahay ilmaha waa in loo wanqalaa waqlal ama wanqal waxa doonto u taqaan ilmaha waxa waaye markii loo magac bixinayo 7 maalin ay joogaan waa in neef loo qalaa oo loogu magac bixiyaa neefkaasi wanqalkaasna waxa uu yahay wiilasha waxaa laga rabaa 2 neef gabdhahana waxaa laga rabaa 1 neef sida diinteena noo sheegtay wax walba diinteena macaan ka baranaynaa midda kale waxay tahay ilmaha inaa u bixiso magac wanaagsan ilmahaaga u door magac wanaagsan ma aha waxa maqasho ilmaha isaga bixi magac micnihiisa aad aqoon inaad isaga bixiso magac cunugan dhibaayo inaad u bixiso waxa fiican magaca u bixinaysid diinta islaamka raad ma ku leeyahay magaca cunugaaga u bixinaysid maxaa yeelay magaca wanaagsan waxay ka mid tahay tarbiyada marka waa inaa magac wanaagsan cunugaaga u doortaa nabiga kaleey salaatu wasalaam magacyada xun uu bedeli jiray wuxuuna u bedeli jiray magacyo wanaagsan nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay magacyada ilaahay agtiisa loogu jecel yahay in ay yihiin Cabdullah iyo Cabdiraxmaan marka wiil iyo gabar wuxuu ahaado waa inaa magacyo u doortaa magacyo islaama diinta islaamkana raad ku leh waa inaa ilmahaaga u doortaa midda toddobaad waxay tahay hooyadu waa inay nuujisaa ilmaheeda muddo 2 sano ah haddii ay awood u leedahay markaas aysan jirin waxyaabo ka hor imaanayo in cunugaasi uu naaska nuugo sida hooyada inay uur kala yeelato ama ay xanuunsanaato caafimaad badan ay u leedahay hooyada inay ilmaha nuujiso ilmaha naftirkiisa cudurro badan oo ka difaaca naaska waxaa ka dhalanaysa maxabo oo cunuga iyo hooyada ka dhaxeynayso cilaaqo fiican ka dhaxeynayso hooyada ilmaha way jeclaanaa ilmahana hooyada way jeclaanaa midda kale waxay tahay hooyadu waa inay ilmaheeda u muujisaa farxad iyo jacayl mar walba cunugaada eegto fiiriso waa inaa mar walba u qosishaa wajigiisa farxad u muujisaa si uu u dareemo ilmahaasi in uu haysto hooyo wanaagsan marka waa inaa farxad mar walba ilmahaaga u muujisaa midda kale waxay tahay ilmaha waa inaa ka ilaalisaa oohinta faraha badan waa in mar walba cunugaaga uu macna daro uusan u ooynin cunuga markuu ooyo waa inaa waxa uu tabanayo u baahan yahay aasiisaa haddii markaas uu xanuunsan yahay waa inaa dhakhtar iyo waxa u raadisaa ilmaha ooyinta badan ma u fiicno dabeecadday ka luminaysaa midda kale waxay tahay ilmahaaga marka uu gaaro bilooyin 4 bil 5 bil ay hadaha gaaraan u sheekaysid ilmahaaga waa inaa la sheekaysataa sheekooyin wanaagsan uga sheekaysaa waxyaabo macaan badan uga sheekaysaa waxyaabo cunugaaga maskaxdiisa korinaya waa inaa uga sheekaysaa marka waxaa loo baahan yahay ilmaha inaa u sheekaysid hooyada ilmaheeda markay u sheekayso cunuga dhan wuxuu dareemaa nashaad iyo farxad ma aha inaa meel isaga tuurto ilmaha oo hooshaada ka raacatid
haddii aad jaanis u heshid waa inaa ilmahaaga u sheekaysaa ma ahayn in la dhaho muxuu yaqaanaa cunugan waaba yaryaha waxba ma ogo. mida kale hooyada markay mashquulsan tahoo kaleeto cunuga waxaa loo sameeyaa waxyaabo uu ku mashquulo oo nashaadkiisa badinayo sida inuu sariirta korkeeda wax loogu xiro ama cunuga hadduu uu fadhi gaaro waxyaabo alaabo uu ku mashquulo waa inaa u keentaa ku ciyaaro oo ilmaha iska mashquulisid nashaadkiisa ku jiro maskaxdiisa ku koreyso. marka waa inaa ku dadaashaa ilmahaaga sida nashaadkooda mar walba u keeni lahayd. mida kale waxay tahay ilmaha u diidin inuu gurguurto xilliga gurguurashada. haddaa gurguurashada ka ilaaliso hooyooyin badan waxaa jira ilmaha duudka ku xirto ama sariir ku rido ayagoo ka ilaalinaya gurguurashada cunugaasi inuu dhaco ama wasaqoobo. waxaa loo baahan yahay meel nadiifa oo weyn in ilmaha aa u dhigto alaabo oo burbursada raacdaysto. ilmahaaga ha ka xiran lugta. haddaa ilmahaaga lugta ka xirto waxyaabo badanay kuu keeneen ma fiicno ilmaha yaryar in lugta laga xiro xilliga gurguurashada. haddaa lugta ka xirto ilmaha madax adeegay u keenaysaa wuxuu ka qaadayaa cunuga dhan fudeed iyo dhangax ka qaadaa halka mar aad sii deysid asaga dhan waa ordaa wixii uu arko qarbudaa ma fiicna. marka ilmaha waxaa fiican in aad sii deysid weliba meesha ay ku gurguuranayaan ee noqoto meel waasac ah. hal qol xataa haddii aad degan tahay halkaaga qol alaabta inta iskor saarto meel geesa ku aruuri ilmaha u banay qolkaas si uu ugu gurguurto cunugaaga si jaanis oo isaga bixiya enerjiga ku jiro. ha u diidin inuu gurguurto meel waasaco nadiifana uu ku gurguurtana u sameey alaabo markaas oo burbursado oo ku ciyaaro oo daba ordan waa inaa u sameysaa ilmaha. ha ka xirin lugta hana u diidin inuu gurguurto maxaa yeelay nashaad badan ay leeyihiin xilligaas markay ay ku jiraan aadna waa inaa u ilaalisaa. waa inaa u dhigtaa alaabo yar oo ku mashquulo ilmaha oo cadaysta maanta dhan oo burbursado alaabahaas waa inaa u dhigtaa si uu cunugaas maanta dhan uga daba ordo nashaadka ku jirana oo isaga bixiyo. insha allah videoga waxaa kusoo gabagabeyn doonaa haddii allah awooda ii qadaro qaybtan oo garguurashada markii ilmaha gaaraan 1 sano ee socod bilaabaan kan ku xiga ka bilaabi doonaa la soco qaybta 3aad haddii allah awooda la qadaro. haddii aan nala joogi jirtay like wixii ra'yiga comment haddii aan cusub tahayna subscribe dheh si aysan ku dhaafin fiidiyoyaasha soo socdo. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.